رمضان كريم إلهي إبليس واحد رمضانك شيطان كي كلاته إنسي إسكندي جايو قبل السحرنا عيبتي سيلا هي واكشف واتها يلا يلا السحر كمرك لجوا آخريو تاها يسوع بسنيس الساحر وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما سمعوا ميل بلادنا ذيك الجوكتان رمضان كريم رمضان كريم رمضان كله بدن إلهي وحنا كرجين يا عافية يا عبادة سبحان عمل خير دكستو مراد لهنا إلهي وحنا وديني إنه مراد كسمت خير كده يكون حنوصلنا وعافية تامسيو كل جريودة جندي وتجند هو يجي لكل جريودنا سمري ما نقص يكون رش هسترح مرة شهور بركة كل السجاين دل بدنا بركة سنة سيلا برات الكنية نبض يبل شو أنت سومالي يوم ميدان الله هو مسلم إلهي إبليس واحد شيطان كوين رمضان كإلهي قفلوه بنا واحد هذا بقى شياطين بدن أو إنسيا بيجروا إبليس للشقية ميت كم ذي نوعه هنا تهوا إنك جروا حقيقة واقعين ها صنصي وعد دايما موقع قبل ده ما أنت تقول الرسالة الله الله واحد درينا حالة ده الناس العشر عين أمريكا خلدية أما ركعتي سنتاي أما السحر له أديك سدي أما دايما تلبيوس أنا قلنا سايكولوجي بمرتبة أما شغال هانو حرفة ده هذا كل شقيني وان درينا gabadhii haddii aan la hadlayo contacti aan kala qaadanayba mid wax cunta oo wax cabtaba maaha xaaladeeda guud baan wareystay mise gabadhu waxay leedahay guri kama baxo mise gabadhu waxay leedahay nina kan inaan cid la hadlo ma ogola yani waan yaabay haddaba anoo gabadha og inay cilad degan tahay oo dhibaato u imaan karto ama sixirka lagu sii xoojin karo waan isgaabiyey si aan u helo cid ehel ah oo gabadha la xiriirta oo gacanta ugu dhigta intaan xaaladda helayona inaan la daadaadhaco oo quraan iyo sheekhi wixii ka agdhow aan markaa heli karo aan magaranaysaa u diro haddaba wax dhacday gabadhi anoo farxaddeeda ka shaqeynaya waxaan ku yidhi 3 habeen iyo ka badan baad qolkaa ku jirtay waxba cunine anaa walaalkaa ah anaa garab kuu ah anaa dhiigaagii ah dhibi ku gaari mayso lifeka soo gal anaa kuu sheekeynaya anaa kaa qoslay message baan diray marka suu dhabaalayga ahayd waa midoo gabadha dadka dhaliisha iyo canaanta la doonaya waxaan arkayay inaan magaranaysaa aysan ku habbooneen inaan halka iyaga la buuqay si xeeladaysan aan wax u fahansiiyo gabadha canaanta ka daaya waa gabadheeni waa sharaf filin leh waxaan dareensiinay gabadha tan yani inaysan xaalad la canaanto oo lagu qayliyo aysan u baahnayn ee garab ay u baahan tahay iyadoo mid diineed iyo mid maadiba loo dhisay haddaba su-aalaha sida maldahan aan waraysiga ugu gudbinayay waxaa kamid ahaa gabadhu kolkii ay tilmaamaysay inaysan lifeka mid ralli ah ka ahayn oo khasab yani afkeeda ay ka sheegtay laakiin saddex qaab cilmiyaysan bay ugu sheegtay waa tan kale gabadhu waxay sheegtay inay cilad degan tahay oo aysan cid haysan ninkaasuna uu yahay mid keligii ma garanaysaa inuu jecel yahay inuu la hadlo ama cid kale aan ogolayn waxay kaloo sheegtay emailkeeda iyo ama tiktokeeda inuu isagu gacanta ku hayo waxay ahaataba fariimaha si maldahan baan u gudbiyey dadna waanu diray gabadha tan la yiraahdo darmaan ama la yiraahdo ismahaan abwaanada ah allah xafidee ayaanu diray waxaan ku yidhi darmaanay gabadha xaaladeeda ogo ma garanaysaa si gaarna ha loo ogaado شيخنا هاللوجي درمان وأوتكتي شيخ وانا اللوجي كبر كلا تعبرت هذا ماشي جوكتا قرآن بعد الصلاة وحكى له تؤتي قولي وحكى له تؤتي سندس المهم قبل دي قعدت حالي يقولك أنا كمهر هل كريم كمهر بودي كريم إلا الشيطان كيسحر كأديك سدي قبل هدول عدلك وقعدوا هل كيبو عواقب حمادي كسي وضيع قبل ده أنت عدوا هليسو قعدت كلكتا أو مقرنا يساي يا شيوخ يدت قرآن صارا ههر بودي بالله si kaarta aan fariintii weedi ku soo gudbiyay gabadhii hadaba waa la quraan saaray markii la quraan saaray maxaa dhacay tana dhacay يقولون نحن جميع منتصر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ليولون الدبر سيهزم الجمع ليولون الدبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته. الساحر وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم. طبعا هو حد يرى نحل كره قبل واي سيف أهل الذي بين الجوكتا وبقي مايو إلهي بين الجوك هل كان سان علماء أهل خير يوحي قرآن أخرين جري قرآن كأكو أخرين وأنا كلو الشيخ حبيب اللي يرى هذا هذا الشيء شيخ حبيب إلهي أقرأ أنا نقضي وقف كتب يوتيوب بقول يا حبيب عبد الرحمن بقول الله بقول لكم كبر ضبط حرام مر الله على مر قبل القرآن كسر وآخرين بتاعي قوالت. الشيخ قال سيدي كجماعة حرم ولا الشيخ خاص شرم بيو البلايا هاي سو أبتيتك كحرية ما نطق هرك حرم وريركي ما الله توصي كرم مر الله على مر القرآن كسر وآخرين شو هذا شرم بيها كلية يعلو بابا كسر عذاب عيلة
dumaashidii buu soo leefleefaya jacaylkii raxmadii shaydaankii buu ka xijaabay anigadayda yaasiin abanku way quraan saar markaasaa dacar iyo balaayaan soo umatay oo arakan oo gabigiisu wax xirxiran oo ma garanaysaa aan dhaqaaqi karin baan war ku akhri ninkan waa la hayaa suwaa ku akhriyay ka ayaamaha kan TikTok iyo meelaha dadka la kaftamaya waagi hore god buu ku jiray almuhim hadii mar alla markuu quraan saaray wuxuu gabartan madiida la saaray oo waa qataaranta telefoon kagama harin kii live ugu tagay telefoon baan laga sii saaray daba ninka kan Cabdikaafi la yiraahdo Cabdikaafi waa saxiraale gabadhan yarta waa madiideystay waxyaabaha aydan ogeenan hadda idin sheegay wax kamid nina kan inuu gabadha ku oran jiray live-ka markaa soo galayso hadii lagu dheega hadlo hadii aan hadal xun ku dhaho ha masayrin jacayl matal si loo dhaho gabadha tan nina kan aad u jeceshahay way u masayraysaa waa gabar qalbi wanaagsan yaa wuxuu doonayaa nin balaaye ah oo laga daba ooyayo inuu iska dhigo tan kale nina kan gabadha live-ka waa ku khasbi jiray oo raali kama aysan ahay waa tan kale nina kan ma ogoleen gabadha in ay cid la kulanto dad kale oo Soomaaliyeed ayaa ila soo xiriiray oo xataa hereer ahaan iyo hayb ahaan isaga ka agdhow waxa dhahan yaasiinow gabadhan xaaladeedu inaysan ashahayn mar hore aan ogaanay hadii aan qorshe ahaan ku fikirnay inaan nina kan wax u sheegnana goodsi hanjabaadii handadaad buu noo gal oo ma ogoleen gabadha wax la mid aragtideeda in la soo hadal qaado haddaba nina kan saaxirka wuxuu sameeyay markuu arkay Soomaali aqligeeda iyo garaadkeeda iyo inuu Ilaahay ka shifay isaga iyo balaayadii shaayadiinta ay adeegsanayay video buu soo duubay ولايه قبضة يرير كذا ورالي قلني قبضة يرير كذا هدات رالي قليسو محما تي إلهي حقيقة قليسة ساحرو تي إلهي حقيقة قليسة إلهي إلهي ساحرين ما في يدن بيقولوا النار باشو قيسي تي حقيقة قليسة قبضة مسكين تا إيه مدي ديسي إيه تيك توك يلا فينا تقول كلا عشان تعرف تدعو هاي درجة إيه دمت عاد كلا هيك محاها guurka aad hadda tilmaamayso iimaan law boqol kun oo lacag oo TikTok ah lagu dhuftay ma aad ku guursato kaliya waxa doonaysay fame iyo magac inaad ku samayso oo lacag gabadha aad ku samayso ilaahay baan ceebtaadii ka shifay nafsiyada kale oo ku helay waxa kamid ah oo ilaahay ceebtaada u ka shifay gabadhii maskiinada ahayd ee marwadaada ahayd ee ooyeysay ee lahayd caruurta shaax uma hayo gabadhaadii dhallaanka midiyaha liimaanis عقوباتودي iyo inkaartoodii baa kugu dhacday sixirkii iyo falkii aad gabadha tayarta u waday iyo godkaagiina Ilaahay baa ku kashifay iyo bulshada Soomaaliyeed oo damiir kale oo ma garanaysaay dulinimadaada banaanka keenay habeenka dhaweyd wayar carooday si kulul baan u hadlay isagu wax la dhaliilay wax la caayo istaahilaa laakiin waalidkiis aan waxba ii geysan ayaa hadal qalad iga gaaray Ilaahay dambigooda ha dhaafo waxa xun aad dhalayso adigu ma ogin Ilaahay baa sabab uga dhigay odayga adeerkeena waxa la yiraahdaa cafi tii adduunyada ay tahay laakiin kan saaxirka ah Ilaahay baa cafi maayo aniguna deyn maayo waxaan hadalkii ku soo xiray in xawaa hadalkaygu yahay kaafiyo gabadha jacayl ku raadimaysay ma sixirkii baad ku herslaaday waa laga furfuraya taasoo tii Ilaahayna ku dambaysa waa maxay kalsooni darrada ku hayso gabadh yar ku saxrayso وأذكر جعل سنة سنة هلك كوف اللي ذا الدليل ستات فيديو يبلايا على قوة صوت طوي محن دلني ما هي بتكره على آخرية دوب يلا نفترض هو كلسونين ونن كامل هاي وبحيي في ورقة جيسو بتكلم قاعد كل هذا إن أنا هذا السوق إلا دون الشوفالة لو تهنا واحد كوسي عضينية هبدأ كان كليته يقاب كدر قميص سحر مركل يرى هذا لا وتنكلم bulshadii Soomaaliyeed ee ka dhigay xumaadta iyo tacadiga ninkaas u geystay ee fahansaneed falkiisa iyo sixirkiisa iyo aragtidiisa liita Ilaahay baa guusheena siiyay dadaalkii aanu sameeyay qof kasta oo dulmi u bareerana aakhirkiisa Ilaahay baa ka shifaa gabar kasta oo Soomaaliyeedna mas'uuliyad baa naga saaran waa walaashay waa hooyaday waa gabadhay waa mid noo dhaxlo hadii ay jiraan niman iqdi iyo xumaan iyo xaasidnimo iyo sixir idin la aada ama mental abuse idin ku sameeya ama nolol aan idin ogolay kuwa badan oo anigu aan kamid ahay oo og inaad sharafkoodii tihiin baa jira Ilaahay adduunkana dib idin kuma tuso aakhirana jannadii u dego xabad deelqaafka iyo fariimaha khaldan shaydaanku uu ka keenana Ilaahay hanu aanuubi waxaan ku farxay sida wada jirka ah ee garashada leh ee diinta leh ee aqliga leh ee gabadhaadu garab istaagtay nin kasta oo duliyo gabar darajo xumo iyo dulmi la doonana dayac baa u dameynaya sida ka Ramadaan Kariim